toddoba arrimood oo raggu doonayaan balse aysan dumarku u sheegin. Waxaa jira waxyaabo badan oo raggu aysan u sheegin xaaskooda balse ay si ba'an u doonayaan dumarka. Ilaahay awood uma siin in ay akhriyaan waxa ku jira madaxa ragga iyo dumarka Soomaalida ayaa qaasatan ku liita wada hadalka. Inta badan lamaanayaasha Soomaalida ma dhaxmarto sheeko macaan ama in ay ka wada hadlaan arrimaha reerkooda ee waxay isugu yimaadaan in ay wax wada cunaan iyo galmo. Haddaba mowduucan waxaan ku soo bandhigayaa 7 arrimood oo raggu doonayaan balse aysan dumarku u sheegin. raggu waxay doonayaan xushmad. Ninkaagu intuu ku yimaado ku dhihi maayo waxaan doonayaa in aad i xushmayso, balse qodobkan waa midka ugu muhiimsan ee raggu doonayaan. Dumarku waxay doonayaan jacayl, balse raggu waxay doonayaan in aad xushmayso oo aad ka dambayso. Ninka ragga ah haddii uusan xushmad ka helin xaaskiisa waxaa meesha ka baxaya jacaylkiisa. Waa nin dhabarka laga toogtay oo kale. 2 raggu waxa ay doonayaan xaas ay isku haleyn karaan oo garab taagan xilliga dhibaatada iyo xilliga barwaaqada. Ma doonayaan haweeney markii uu ninku taajir yahay la socota, markii xaaladdu ku xumaatana ka tagaysa. Raggu waxay doonayaan xaas markii ay guriga yimaadaan ku soo dhawaysa, hadal macaan. Ma doonayaan xaas habeenkii saqda dhexe aroos ka imaanaysa. Raggu waxay doonayaan in markii ay guriga yimaadaan in wax kasta diyaar yihiin. 3 raggu waxay doonayaan galmo dheeri ah. Arrintan waa mid dumarku aysan ku baraarugsaneen, balse xaqiiqda ayaa waxay tahay in dareenka raggu uu yahay mid xilli kasta kacsan. Raggu waxay doonayaan in xaasku ay diyaar tahay markii ay doonaan. Ogow, haddii aad ninkaaga ku tiraahdo madaxa ayaa i xanuunaya caawa, diyaar ma ihi, aan sugno Sabtida iyo Axadda, in uu seexanayo habeenkaas isaga oo xumaan dareemaya. Ragga markii uu galo rabitaan galmo waxay doonayaan in ay ka miro dhaliyaan. Haddaba haddii aysan jirin caqabad ka hor taagan in aad la seexato ninkaaga, dumarow ogow in ninkaaga uu doonayo galmo dheeri ah. 4 raggu waxay ka fikiraan dumarka kale. Qodobkan qalad ha u fahmin. macnaheeda ma ahan in ninkaagu uu ku qiyaamayo ama uu xaas kale leeyahay iyo wixii la mid ah, balse waxa xaqiiq ah in ragga oo dhan ay ka fikiraan dumarka kale, qaasatan in ay maalin maalmaha ka mid ah xaas kale guursadaan. Arrintan waa mid loo baahan yahay in dumarku yaqiinsadaan isla markaana aqbalaan. Ninkaaga kama hor istaagi kartid in uu xaas kala guursado, balse waxaad noqon kartaa midda uu ugu jecel yahay. 5 saygaagu waxa uu doonayaa farxadaada. Arrintan dumarka kuma baraarugsana, balse ragga oo dhan waxay doonayaan in ay xaaskooda ka farxiyaan. Raggu waxay saa'id ugu shaqeeyaan in ay kor u qaadaan heerka nolosha ee familkooda. Dumarku waxaa laga doonayaa in ay fahmaan juhdiga raggu u galaan farxadooda, isla markaana ay uga mahadceliyaan, balse aysan buuq la imaan xilliyada arrintu isku toosi weydo. 6 ninkaaga adiga ayaa muslim fiican ka dhigi kara. Qodobkan waa mid ragga iyo dumarka Soomaalida labaduba liitaan. Dumarku Soomaalida iskuma dayaan in ninkooda ay ku dhiirigeliyaan diinta. Waxaa la ogaaday haddii xaasku ay ninkeeda ku dhiirigeliso diinta sida salaada, in uu xooga saaro. U kici saygaaga salaada subax, ku dhiirigeli in uu masaajidka aado. 7 saygaagu waa ku jecel yahay xitaa haddii uusan muujin. Ragga Soomaalidu kuma wanaagsana muujinta jacaylka. Inta badan kuma wanaagsana in ay xaaskooda ku yiraahdaan waan ku jeclahay, balse taasi macnaheedu ma ahan in saygaagu uusan ku jeclayn, balse waxa uu ku liitaa in uu muujiyo jacaylkiisa. Taasna rag badan ayaa la qaba. waa uu doonayaa in uu ku muujiyo jaceylkiisa, balse marar badan kuma guuleystaan raggu in ay jaceylkooda u muujiyaan sida saxda ah.